السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليجة maanta waxaa cashirkeeni uu ku saabsan yahay topic about love mowduuc ku saabsan jaceyl mowduucan jaceylka waa mid xiisihiisa wata inta aan guda gelin cashirka ha ka hilmaamin inaad like saarto videogan haddii asxaab cusub aad tahay nagu soo biiray waa mahadsan tahay subscribe saaro janaalkan si aad u waynin fiidiyoyaasha mustaqbalka sidoo kale asxaabta hadda oo janaalkani daawanayso waxaan niga codsanayaa videogan inaad u sii share gareysiin asxaabtiina kale ee jecel arrimaha jaceylka share u sii dhaha waa mahadsantiin commentigana waxaa igula wadaagaysiin sida oo videogan idin leeyahay ama aad ka aaminsantihiin ama sida u jeceshiin oo kale commentiga ra'yigiina igula wadaaga waan bilaabayaa cashirkeena What is love? Waa maxay jaceyl? What is love? Waa maxay jaceyl? Ko waxaan ku bilaabayaa qeexida jaceylka kadibna cashirka ayaan guda galayaa. What is love? Waa maxay jaceyl? Is a strong feeling waa dareen xoog leh of affection kalgacayl and concern towards another person oo loo qabo qof kale. Taasi waa qeexitaanka jaceylka. When I look at you today, markii aan maanta ku eegay, I realize waxaan garwaaqsaday my love for you grows in jaceylka aan ku qabo oo sii kordhayo dhiba mid qoto dheeraanayo rija iyo mid hodan sii naqanayo and more satisfying oona mid lagu qanacsan yahay as time goes by waqtigana uu sii socdo whenever something good happens markasta ay wax wanaagsan dhacaan whenever something good happens markasta ay wax wanaagsan dhacaan you are the first person I wanted to tell waxaa tahay qofka ugu horeeyo ee aan rabo inaan u sheego you are the first person waxaa tahay qofka ugu horeeya I wanted to tell ee aan rabo inaan u sheego when something bad happens markii ay wax xun dhacaan I know that I can count on you waan ogahay inaan ku xisaabtami karo to take me inaad igu qaado in your arms gacmahaaga igu qabato and tell me aad igu tiraahdo everything will be alright wax walba way hagaagi doonaan macnaha waxay u taagantaa mar walba wax qalad iga dhacaan inaad gacmahaaga igu qabato oo tiraahdo wax walba way hagaagi doonaan oo isbedeli doonaan I love you with all my heart qalbigayga oo dhanaan kugu jeclahay as I write this letter marka aan qoraayo waraaqadan ama fariintan markaan qoraayo it is like waxay ila mid tahay you are here with me you are right here with me you are right here with me ina halkani ila joogto I feel you waan ku dareemaa in my sight dhankeyga I feel you in my sight waxaan ka dareemayaa dhankeyga I miss you darling waan ku waaye gacaliye I miss you darling hadba waxay qusaysaa qofka u diraysid I miss you darling marka dhahdo ragna waa u diri kartaa dumarna waa u diri kartaa hadba waxay u adeegsan kartaa qofka allaala qofka u diraysid waa mahadsantiin asxaabta sida ila socotiin when I hear your voice markii aan maqlo codkaaga I melt waan dhalaalaa a little inside gudaha in yar ayaa gudaha ka dhalaalaa when I hear your voice markii aan maqlo codkaaga I melt a little inside waxaan ka dhalaalaa gudaha and when I see your sweet face markii aan arko wejigaaga macaan I know that you are my one true love waxaan ogahay inaad tahay hal jeceyl ee aan qabo oo dhab ah
You were already on my mind. Hore ayaa ugu jirtay maskaxdayda. When I wake up this morning. Markii aan soo toosay saakay. Funny waxaa la yaab ama qosol ila noqotay. How I just can't stop thinking about you. Sida aan u joojin karin fikirkaaga. Just can't stop thinking about you. Sida aan u joojin karin fikirkaaga. You are the most important person in my life. And ereyga important waa dhigi kartaa, laakiin wuxuu ku qurux badan yahay ereyga native oo dadka Ingiriiska isticmaalaan important tida kuma dhawaaqaan ee dhaxda ku jirto. Important ee dhahan. You are the most important person in my life. Waxaa tahay qofka ugu muhiimsan nolosheyda. So I just wanted to say. Marka waxaan rabay inaan ku dhaho I love you. Waan ku jeclahay. And I can't wait to see you again. Mana ku sugi karo mar kale inaan ku arko. Kuma sugi karo mar kale. And I can't wait to see you again. Ma ku sugi karo inaan ku arko mar kale. Qofkaan marka ama qofka adiga aad tahay shakhsi ahaan haddii aad adeegsanaysa jecelkan, qofka waxaad ku jeceshahay ii sheeg hadduu ku dhaho qofka waxaa igu jeceshahay, waxaa jirto sabab oo qofka ku jeclaa karto. Marka halkan waxaa ku soo qoray qof sabab lagu jeclaanayo, waa wax aniga aan iquseeyo aan soo qoray, laakiin adiga aad isticmaali kartid ama wax kale ku darsan karto. Reason why I love you. Reason why I love you. Sababta aan ku jeclaaday adiga. Qofkan wuxuu sababeynayaa sababta ku jeclaaday. I love you your sense of uma. I love you your sense of uma. Waxaan jeclahay kaftankaaga. It is one of the first thing I notice about you. Waa mid ka mid ah aan ku dareemo adiga. It is one of the first thing I notice about you. Waa mid ka mid ah ee adiga aan kugu dareemo. I love your eyes. Indhahaaga waan jeclahay. I love your smile. Dhoola cadeyntaada waan jeclahay. I adore your style. I adore your style. Waan jeclahay qaabkaaga. When we are together, markaan wada joogno, I feel better. Waxaan dareemaa fiicnaan. Stay with me forever. Stay with me forever. Weligaa ila joog. So, I always feel safer. Mar walba waxaan dareemaa ammaan. When we are together, markaan wada joogno, I feel better. Waxaan dareemaa fiicnaan. Stay with me forever. Weligaa ila joog. So I always feel safer. Si aan mar walba u dareemo ammaan. All my dreams came true. Dhammaan riyaydeedii ayaa rumowday. The day I meet you. Maalintii aan kula kulmay. I need say more. Waxaan u baahanahay inaan wax badan ku dhaho. I love you. Waan ku jeclahay. Topic love. Mawduuceena jaceylka intaan ayuu nooga eg yahay. Waa ku mahadsan tahay daawashadaas ilaa bilow soo dhamaysatay. Videogan haddii aad ka heshay asxaabtaada la wadaag. mahadsanidin.